run ahaantii maanta waxaynu u fadhinaa isugu nimid inaynu daah furno shirkan wada tashiga iyo aragti wanaagga lagaga hadlayo fikirka xag jirka ah halku dhigiisuna yahay dulqaad iyo wada hadal in la isu dulqaato oo diinta islaamku in badan culimadina way nala joogtaa in lagu wacdiday iyo in la wada hadlo oo la doodo oo fikir wixii la isku weydaarsan karo la isku qancin karo kow arinta dagaalka iyo in dagaal iyo xoog lagaga hortagaa waa ta ugu dambaysa laakiin waxa ka horeeya wacyigelin iyo ideology in fikirkan xiwaar laga furo oo lala doodo iyo taafraadoo noqon karta in dhaqaalaha iyo meelahan waxaan ciidan ku shaqaysataa ay ka keenayso ama ay ka helayaan la joojiyo sida kaliya lagu hormari karo oo wax looga qaban karaana waxa weeye in culimada la dhageysto istiraatiijigaasina uu leeyahay qorshe Soomaaliyeed leedahay waxaan hadda aad ugu faraxsanahay in xafiiska ra'iisul wasaaruhu uu xiriirkii iyo coordinationkii wado maantana marayna marxalad qorshe howleedkii dhammaan hay'adihii dawladda iyo dawlad goboleedyadii gobolka Banaadir ay soo diyaariyeen noogana baahan inaan dhaqan gelino marka waxaan aad ugu dardaarmayaa ugu bogaadinayaa dhammaan in qorshe howleedkaas sidii ku dhaqan geli lahaa inay tahay mid looga baahan yahay u baahannahay inaan isku tashanno in qof walba iyo hay'ad walba iyo qoys walbana uu kaalin weyn ku leeyahay haweenku wuxuu ku leeyahay door muhiim ah haddaan nahay haweenka qarankana anagu si dhab ah ayaan ugu hawlanahay arrintan ayada ah guddi baana u saarnay oo aan rabno inaan heer dawladda dhexe ilaa heer dawlad goboleedyada aan gaarsiino oo wacyigelin ah oo laga wacyigelinayo dhammaan ummadda Soomaaliyeed inay ku noqoto arrintan update sababtoo ay tahay waa dhibaato culus oo maalin walba ehel u ah ummadda Soomaaliyeed inay qarax iyo dhibaato iyo dayac iyo burbur ay maalin walba kor taagnaatay Allah u naxariistay oohin marka haweenku mar walba oo qaraxu dhaco ama ka ku dhimanayay dhashay ama waa ninkay u dhaxday waxay dayac u tahay marka asay iyo dhibaato iyo qaxar fikirkan maxay ahayd waa fikir haraadiyay dalka Soomaaliya waan soo dhaweynayaa in laga shaqeeyo fikirka xag jirka ah sababtoo ah dhibaato badan ayuu u geystay hooyooyinka Soomaaliyeed because kan wax dilaayana ayaga dhalay kan la dilaayana ayaga dhalay marka waxaan leeyahay wax badan ayay ka qaban karaan maadaama hooyooyinka Soomaaliyeed ay yihiin guri joogto waxay ogaan karaan ninka xaafadda soo degay waxay ogaan karaan dhaqdhaqaaqa ilmahooda iyo fikirka xun oo lagu shubay kan wax dilaayana ayaga dhalay kan la dilaayana ayaga dhalay marka waxaan leeyahay hooyooyinka doorka ugu weyn ay leeyihiin sidoo kale ta culimo u diinka sidoo kale ta dhalinyarada sidoo kale ta maxay ahayd in dawlad goboleedyada iyo dawladda federaalka Soomaaliya ujeedka shirku wuxuu ahay in dadka Soomaaliyeed wax iska weydiiyaan istiraatiijiyada qaran ee dawladda federaalka iyo maamul goboleedyadu ay sameeyeen iyo qorshe howleedyadii la wada sameeyay sidii loo taabageli lahaa in wax la iska weydiiyo howlgal adag baa dawladdu ay qaadaysaa waxaana loo baahnaan doonaa wacyigelin la socoto oo ummadda Soomaaliyeed ay qayb ka yihiin barnaamijkana gundhigiisu waxa weeyaan dulqaad iyo wada hadal dadka Soomaaliyeed inay sida u fahmaan qof walba kaalinta ka muwaadinaan uga aadan inuu baajiyo dhiigga walaalkiis iyo walaashiis oo sida xaq darrada ah u qabanayo maalin walba dadkani waa dad annaga naga mid ah waa dad Soomaaliyeed ah sida ugu wanaagsan looga hortagi karo cilmi baaris kala duwan laga sameeyay walina aan wadnaa dalkoo dhan ka dhici doonto laakiin si wada jira in loo dhaqaaqo ayaan go'aansanay ilaahay doorana waxa bilaaban doona maalmaha soo socdo culimada Soomaaliyeed shir weyn qaran ay leeyihiin